الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين أرض جامعات الوفاء معلمين يماملك جامعات والدين تنقل بير صوت العيي مدح قرن كيك لجدسن مرت شرف ترى بدن halkan rag iyo dumar bale waxa dhaqanka ciidamada qalabka sida dhamaantiin saxaafada assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ilaahay tabaaraka wa ta'ala mahadle waxa kale oo mahadcelinaya maamulka iyo madaxda jaamacadda alfaa xafladda inta leed soo agaasimay oo inta oo akhyaara iyo bulshada reer Soomaaliland labeenteedii halkan maanta isugu keenay waxaan leeyahay jazakumullahu khayra runtii waqti dambe in badan oo la fadhiyay mas'uuliyiintii qarankana qaar baa inoo arsan xafladda khatmadeedii inoo soo xiri doona laba kalmadood ma oran doonaayo ardayda waxaan leeyahay alfaa ee maanta halkan ka qalin jabinaysa tobanka ee kulliyadaha kala gedisan ka qalin jabiyey waxaa leeyahay hambalyo waalidiintii midada dheer ku soo tabcaysay ee maanta ilaahay ku simay quruxda iyo qiimaha iyo sharafta inay ka soo qayb galaan oo halkaa maanta inala joogana iyagana waxaan leeyahay hambalyo bahda waxbarashada oo dhan ayaan leeyahay hambalyo public iyo private qaranka Soomaaliland oo midhaha soo go'een ayaan isagana leeyahay hambalyo ardayda waxaan leeyahay qofka bani aadamkii ilaa iyo intuu godka ka geliyo nolosha ardaydu yahay marka inay isla aqoontii waa dhamaatay ee halkaa ka sii wadaan oo dadaalka sii wadaan oo hal abuur la timaadaan oo dhamaanteen xafiis in wada qaadi maayo ee waxaynu u baahanahay in hal abuur ganacsi laga yimaado khayraadka dalkeenu leeyahayna haddii aynu sidiisa uga faa'iidaysano runtii wax badan ayaynu kordhin karaa quruxda iyo qiimahaasina maanta iyo sanaawaad ka hor sidii Soomaaliland ay faraq weyn baa runtii u dhaxeeya meel fiican baynu maraynaa halkaa in hore looga socdo weeye taas ma ku dardaarmaya kelmadda labaad ee ardayda odhanaya waxa weeye ducada waalidka waxaad qiimaysaa waalidkii ku dhalay intaa kugu soo tabcaayay maanta halkaa kula jooga qaarkoodna ilaahay ku simanay nagaba hooseeyaan oo iyagana in loo duceeyo aan rajaynayo habeen iyo maalinba waalidkaasoo maanta ugu jecel haddana 7 bilyan ee qof ama 8 bilyan ee qof ee adduunka guudkiisa ku nool inaad ugu qurux badnaato waalidka ducadiisa inay ilaashataan inay baariino noqotaan inay u dhaganugulaataan inay ixtiraamtaan inay ilaalisaan kelmadda aan carabka ku adkeynaya runtii taa weeye meel gaari maayo qof aan waalidkii ka ducaysan ardayda ha ogaato dhammaan shacabka reer Soomaaliland kelmad baan odhanayaayo qarankeenu inuu wanaagsanaada waa mas'uuliyad wadareed koox qurama saara xisbi qurama saara xukuumad kaliya ma saara adeeguna xukuumadda u diranay mas'uuliyad wadareed weeye qaran ahaan inaynu wanaagsanaana qof waliba nolosha inta kaga aadan uu kaalintiisa qaato taasna waa mid aan leeyahay kelmadda ugu dambaysan hadalka ku soo khatimaya waxa weeye ciidamada ammaanka ee ilaahay ka sakow أمن الدولة يدك المسؤول كتاع والله هاي الله يحفظكم الله يكرمكم الله يعزكم شعب الصومالي لان قيمين شكل جد سنة كلمة بان عرف قطوع كيني يا مانتو وارهي لها عمياتك عندما ينكر جد سنة هدي ملتري هاي يا هدي بوليس هاي يا هدي أسلوب هاي يا هدي عيدا بدايات هاي يا هدي عيدا كتلتنس كتاعي يا هدي كلام تصوال كتاعي يا هدي عيدا سلطان كتاعي دمانتو waxay hooyaniin qarannimada ilaalinteeda iyo sugidda ammaanka ilaahay ka sako iyada mas'uulka marka ay sidaa tahay meelaha qaar iyo siyaasadka iyo labinada axsaabta dhexdooda waaraan ka dayna ciidamada hal laga daayo war haddaynan dirmageynaba yeelan uma jirta noqon mayno waxaan leeyahay waar ciidamada arrimahooda la fargeliyay axsaabta marar badan ay ku ololeeyaan heelbaa soo jeedisay waar arrintaasi dib looga noqdo وحقاً هذا قلت رقمه حسب طلاب ذلك هيا أفريقيا كاسر نظام لما يحكم ولا كل الدنبي وحي وقف صامي يوحي كقر يومي يوحي وقف شيء صار مستغرقة أنت أسأل على الرواية صوب الدقر أحسابتك كلا يورد كلا يمروح أنت كجديسا أنا ويروح هيا إن مقالة ذلك إن واقع قصة يصل وده دخليا نورنا بنتين يباهيات كان يدخليا نواعي كلا بليه marka inaga waaqiciga ka duwanay iyaguna wixii wax ka wada ee kale ummadda hal abuurka lagu kala jiito waxaan leeyahay xilka qarankuna xagga samada ay ka qoran yahay
marka ilaahay meesha ku geeyo umadu ma la ku diraya marka tiyo muwaadin walaa codkaaga si xara aad u dhiiban doonto xisbiga aad qiimeyn doonto waxaan leeyahay nabadgelyadeena iyo wada jirkeena iyo walaalnimadeena iyo xisaanshaheena hala ilaaliyo ardayda iyo mutacallimiinta iyo mas'uuliyiinta jaamacadaha maanta halkan fadhida iyo intay daawanaysaaba waa inay mas'uuliyadda qaadaan waa inaan qof aan aqoon lahayn oo umiyaan iyaga ay hoggaamiyaan taasina waa ku dardaranayaa maraya masaxaabaan oo fursadda ka faa'iidaysanaya waqtigu uu cimri yahay hadalkiina aan runtii dheereeyay intii loogu talagalay ka badiyay anoo ku hadlaya afka waalidiinta reer Soomaaliland anoo ku hadlaya bahda dhaqanka guud iyo dibadda waxaan idin leeyahay ardayda jaamacadda hambaliyo macallimiinta waalidiinta waxaan idin jeedayaa dhammaanteen guuliga gabadhiyo qaranka Soomaaliland oo dhan baan leeyahay hambaliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.